kulanti wacan daawadayaal ku soo dhawaada janalka wararka Soomaalida waa 30 bisha 7 sanada 2019 qodobada ugu waaweyn ee warkayaga aad ku maqli doontaan waxa kamid ah beesha Saleebaan oo ku dhawaaqday go'aankeeda shirka Dhuusamareeb kadib kulan ay la yeesheen guddiga dib u heshiisiinta Galmudug Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo mar kale weerar kulul oo afka ah ku qaaday madaxda Villa Soomaaliya iyo Sheekh Cali Wajiisa ciidamo cusub oo la wareegay magaalada Kismaayo iyo musharaxiinta isbedel doonka oo qalqal amni soo wajahay ahlu sunna oo soo saartay go'aan xasaasi ah oo ka kooban 10 qodob 10 dhacdo oo aan la mahdin oo diiwaanka u galay dawladda Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Khayre oo qaabilay wiil baxsad ka ah Puntland intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa markana waxaad ku soo dhawaataan iyagii oo fidsan beesha Saleebaan ayaa ku dhawaaqday go'aankeeda shirka Dhuusamareeb kadib kulan ay la yeesheen guddiga dib u heshiisiinta Galmudug waxgaradka beesha Saleebaan oo maanta kulan la qaatay guddiga qabanqaabada shirka dib u heshiisiinta Galmudug ayaa ka biyadiiday inay ka qayb galaan shirka la filaya in dhawaan uu ka furmo magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud kulankan oo saacado badan qaatay isla markaana warbaahinta ay dibajoog ka ahayd ayaa intiisa badan diiradda lagu saaray sidii ay odayaasha cadaado uga qayb gali lahaayeen shirkaasi sida ay warbaahinta u sheegeen ila ku dhow shirka waxgaradka cadaada ayaa gudoomiyaha guddiga dib u heshiisiinta Galmudug Cabdiraxmaan Macalin Cabdilaahi Baadiyo ku wargeliyay inaysan marnaba ka qayb gali doonin gogosha taala Dhuusamareeb cadaado ayaa weli tabasho ka muujinaysa in shirka iyo doorashada labaduba lagu qabto halkaasi siyaasiyiinta iyo waxgaradka beesha Saleebaan ayaa hore u shaaciyay inuu balanti uga baxay ra'iisul wasaare Khayre waxaana ay ku eedeeyeen inuu u xaglinayo dhinaca Dhuusamareeb si kastaba ha ahaatee arimahan ayaa ku soo aadaya xilli la filaya in 5 bisha soo socotay Agoosto oo furmo shirka dib u heshiisiinta beelaha dega maamulka Galmudug dhinaca kalena Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa mar kale weerar kulul oo afka ah ku qaaday madaxda Villa Soomaaliya iyo Sheekh Cali Wajiisa siyaasiga mucaaradka ee Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame ayaa mar kale weerar dhinaca afka ah ku qaaday madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame ayaa shaaciyay in Villa Soomaaliya ay difaacaysa danaha Qatar iyadoo ka hormarinaysa danta qaranka Soomaaliyeed waxaa muuqata dawladda Soomaaliya inay u taagan tahay difaaca danaha Qatar balse danta Qatar ay ka hormarinaysa danta qaranka Soomaaliyeed oo ay leedahay ruuxii Qatar wax ka sheega Soomaaliya ayuu wax ka sheegay ayuu yiri siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame sidoo kale waxa uu jawaab ka bixiyay hadalkii la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha Carabta iyo islaamka Sheekh Cali Maxamuud Xasan Sheekh Cali Wajiisa waxa uu tilmaamay in sheekha lagu qasbay inuu beeniyo waraysi uu siiyay wargeyska Al-Wadan kaas oo kaga hadlay ra'yigiisa ku aadan warbixin uu dhawaan daabacay wargeyska The New York Times ee la xiriirta ku lug lahaanshaha Qatar qarixii bishii May ee sanadkan ka dhacay gudaha magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari wadaadkan waxa uu maalmo ka hor waraysi uu siiyay wargeyska Al-Watan ee dalka Sacuudiga ka soo baxa waxaana wargeyska uga waramay ra'yigiisa ku aadan warbixintii uu daabacay wargeyska The New York Times ee la xiriirtay ku lug lahaanshaha Qatar ee qarixii Boosaaso wadaadka waxa looga yeeray Villa Soomaaliya oo mushaari ka yahay waxaana lagu qasbay inuu beeniyo waraysigii uu wargeyska Al-Wadan siiyay cabiray ra'yigiisa ku aadan warbixinta wargeyska New York Times iyo guud ahaan aragtida taban ee shacabka Soomaaliyeed ka qabaan dawladda Qatar ayuu intaasi raaciyay Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame warka ka soo baxay gudoomiyaha xisbiga wadajir ayaa ku soo aadaya iyadoo Sheekh Cali Wajiis oo saxaafadda la hadlay uu beeniyay warbixintii lagu daabacay wargeyska Al-Wadan waxaana uu hoosta ka xariiqay in fasiraad qaldan uu ka bixiyay waraysiga uu siiyay ciidamo cusub ayaa la wareegay magaalada Kismaayo iyadoo musharaxiinta isbedel doonkana qalqal amni uu soo wajahay ciidamo cusub oo ka amar qaata madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa lagu soo waramayaa in maanta ay la wareegeen ammaanka magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ciidamadan oo u badan kuwa booliis oo dhawaan la tababaray ayaa waxay dhaqdhaqaaqyo ka bilaabeen gudaha magaalada sida ay xaqiijiyeen dadka deegaanka xaaladda ayaa haatan kacsan iyadoo musharaxiinta ku sugan Kismaayo ay dareemayaan qalqal amni doorashada Jubbaland ayaa la filayaa inay dhacdo bisha soo socotay Agoosto balse waxaa weli taagan caqabado u baahan in la xaliyo
inta badan musharaxiinta ayayna isdiiwaangelin waxaana ay cabasho ka yihiin guddiga doorashooyinka ay ku eedeeyeen inuu si gaar ah ula shaqeeyo madaxweyne Axmed Maxamed Islaam. lama oga sida ay wax noqon doonaan balse waxaa isha lagu hayaa tartanka adag ee doorashada Jubbaland. Axmed Madoobe oo doonaya in markii saddexaad la doorto ayaa sanadkan la kulmaya loolan adag iyo cadaadis uga imaanaya dhanka dowladda Soomaaliya. geesta kalena ahlu sunna ayaa soo saartay go'aano xasaasi ah oo ka kooban 10 qodob. maamulka ahlu sunna wal jamaaca ayaa soo saaray awaamir culus oo la xiriirta amniga magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug. saraakiisha ciidamada ahlu sunna iyo kuwa dowladda ayaa si wada jir ah u soo saaray go'aano ka kooban ilaa 10 qodob kuwaas oo wax looga qabanayo nabadgelyada. qodobada ayaa waxay u qornaayeen sida tan: muwaadinka iska iibinaya gaarigiisa kuna sugan gudaha magaalada Dhuusamareeb waa inuu ku soo wargeliyaa xafiisyada qaabilsan diiwaangelinta gaadiidka ee labada xafiis. qofka leh gaadiidka waa inuu gaarigiisa ku xiraa taargada maamulka, lamana ogolaan doono gaari aan lahayn taargo oo ah aqoonsiga uu gaarigu ku shaqeeyo. shirkad ama shakhsi iska leh milkiyada guri ku yaala caasimada Dhuusamareeb rabana inuu ijaarto ama kireyso waa inuu la soo xiriira ama taga talisyada hay'adaha amniga si loola socdo dhaqdhaqaaqa cidda degaysa guriga sida shirkad, hay'ad, NGO, mas'uuliyiin ama shakhsi iska caadi ah. ciddii kireysa guri aysan la socodsiin hay'adaha amniga iyada ayaa mas'uul ka noqon doonta wixii gurigaasi lagu qabto ama lagu arko kuwaas oo la xiriira arrimo nabadgelyo daro. qofkii la qabtay isaga oo hub ku dhex wata magaalada Dhuusamareeb sida qori, bastoolad ama bamba aanu lahayn sumad loo raaco isaga iyo hubkiisaba waa la wareegi doonaa hay'adaha amniga ee ku sugan magaalada Dhuusamareeb. gaadiidka ay ku dhagan yihiin muraayadaha madow bensalka waxaa lagu wargelinayaa inay iska diiwaangeliyaan talisyada amniga si loo siiyo aqoonsiga bensalka ama u ogolaanaya in gaadiidkooda ay ku dhejin karaan muraayadaha madow. gaariga ku dhex socda xawaare ama karaar ka badan 20 saacad socodka gaariga gudaha magaalada waxaa loo arki doonaa gaari ka qayb qaadanaya qalqalgelinta amniga. qof walba waxaa laga codsanayaa inay si buuxda ula shaqeyso hay'adaha amniga si loo ilaaliyo badqabka muwaadinka naftiisa iyo maalkiisa intaba. qofkii arka gaari, goob ama shakhsi uu ka shakiyo waa inuu si degdeg ah ula soo xiriiro hay'adaha amniga si loo baajiyo khatar laga yaabo inay mahadhar reebto ama dhibaato culus u keento bulshada magaalada Dhuusamareeb. iyo qodobka ugu dambeeya oo ah askari kasta ee ka tirsan xero ka mid ah qaybaha ciidanka ee soo baxaya waa inuu soo qaataa aqoonsiga ciidannimo si aysan u dhicin ismaandhaaf iyo isku ekeen xiliyada howlgallada ay socdaan. go'aanadan ayaa ku soo aadaya xilli dhowaan magaalada Dhuusamareeb uu ka furmayo shirweynaha dib u heshiisiinta maamulka Galmudug. dhinaca kalena 10 dhacdo oo aan la mahdin ayaa diiwaanka u galay dowladda Farmaajo. waxaan halkan idinkugu soo gudbinaynaa 10 dhacdo oo aan lala wadaagin dowladda hadda jirta ee la magac baxday nabad iyo nolol. dhacdooyinkan ayaa isugu jira kuwo ku yimid gaabis dowladda dhankeeda ah, kuwa ay gacanteeda ku geysatay iyo marxalada ay ka qaadatay go'aan aan la jeclaysan. inta badan dhacdooyinka ayaa ku yimid dabacsanaan dhanka dowladda oo jaaniska ugu badan siiyay kooxda dagaalka kula jirta oo ay ka mid yihiin Al-Shabaab iyo Daacish. ma ku koobna 10kan oo kaliya dhacdooyinka aan horey loo arag ee dhacay inta uu talada waddanka hayay madaxweyne Farmaajo, balse intan ayaa unu aragnay inay yihiin kuwa ugu muhiimsan. madaxda ugu sareysa Al-Shabaab ayaa hal meel ku kulmay waxayna ka hadleen arrimo ay ka mid yihiin amniga iyo isbedelka ku aadan wilaayadooda maamul goboleedyada sida ay sheegeen, waana markii ugu horeysay ee sidaasi ay dhacdo. qarax aan weli la xaqiijin qaabka uu u dhacay oo ay ku dhinteen kuna dhaawacmeen mas'uuliyiin xilal muhiim ah ka hayo gobolka Banaadir oo uu ka mid yahay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa ka dhacay howl shir uga socday gudaha xarunta gobolka Banaadir. Al-Shabaab ayaa isugu yeeray ergada soo dooratay xildhibaanada dowladda federaalka Soomaaliya kuna soo bandhigay meel fagaara ah iyadoona dharka ka bedelay waxayna u sheegeen inay tawxiidka u qabteen. qaraxii ugu saameynta badnaa Soomaaliya isla markaana ugu khasaaraha badnaa ayaa ka dhacay isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho waxaana ku nafwaayay in ka badan 1,000 qof. dowladda Soomaaliya ayaa ka taqalustay ciidamadii hay'adda sirdoonka qaranka NISA waxayna ku dartay booliiska. dowladda Soomaaliya ayaa u gacan gelisay muwaadin Soomaali dowladda Itoobiya oo cadaawad soo jiraan ah kala dhaxayso Soomaaliya waxayna sheegtay xukuumadda inuu qalbi dhagax yahay argagixiso. ciidamada dowladda ayaa weerar qaawan ku qaaday habeen saq dhaxa guriga siyaasi hogaamiye ah xisbi ka mid ah
axsaabta dalka oo ka fikir duwan dowladda iyadoo ku dilay askar dowladda ka tirsan oo ilaalinaya guriga siyaasigaasi isagoo dhaawac ahna xisbiga u taxaabay xabsiga u taxaabay ilaa markii dambe maxkamad uu ka soo muuqdo wax dambi ahna lagu waayo. dowladda Soomaaliya ayaa u aqoonsatay jabhadda ONLF inay tahay argagixiso dhibaato ku hayso dowladda Itoobiya walow ugu dambeyn ay heshiiyeen dowladda Itoobiya ee jabhadda ONLF una aqoonsadeen garab ka mid ah mucaaradka. waa markii ugu horeysay oo la arka koox inta dila qof ka duubaya muuqaal iyagoo dilaya meeshana ka baxsado ayagoon la qaban kadibna muuqaalka ku baahiya baraha bulshada inkastoo laamaha ammaanka ay sheegeen inay qabteen qaar ka mid ah raggaasi. ugu dambeyntiina wasiiro ka tirsan xukuumadda Soomaaliya oo shaqadooda ku jira ayaa idaacadaha ka maqlay in xilka laga qaaday waxayna ku dhacday wasiiro ay ka mid yihiin Juxa iyo Yuusuf Garaada. ugu dambeyntiina ra'iisul wasaare Khayre ayaa qaabilay wiil baxsad ka ahaa Puntland. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa guriga uu ka degan yahay magaalada Dhuusamareeb ku qaabilay Maxamed Cabdilaahi Darwiish oo baxsad ka ahaa ciidamada ammaanka ee Puntland. wiilkani dhalinyarada ee la kulmay ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay inuu isaga soo tagay xaafadii uu ka deganaa waqooyiga magaalada Gaalkacyo kadib markii uu ka warhelay inay baadigoobayaan ciidamada amniga ee ka howlgala magaaladaasi. sidoo kale waxa uu xusay inay cabsi darteed u soo hayaameen isla markaana uu yimid magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug. ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa xog wareystay Darwiish sida ay tahay xaaladiisa isagoo u ballan qaaday inuu garab istaagi doono. Maxamed Cabdilaahi Darwiish ayaa ka mid ahaa dhalinyarada sida weyn ra'iisul wasaaraha Soomaaliya dhawaan ugu soo dhaweeyay garoonka kubadda cagta Cawaale oo ku yaala waqooyiga magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Puntland oo ka carootay booqashadaasi ayaa hore u xirtay xubno ka mid ah guddiga dhismaha wadada Boosaaso kadib markii la sheegay inay lacag ka gudoomeen ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre. guud ahaan daawadayaal warkii aad kala socoteen channelka wararka Soomaalida waa naga inta. fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo subscribe sar channelkan sidoo kalena qaybta gambaleelka taabo si ay kuu soo gaaraan wararka aynu halkan soo gelino. waana mahadsantihiin.